بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel kasta joogtiin ku soo dhawaada koorsada FB cashirkeena maanta waxaan ku qaadan doonaa wax loo yaqaano by val by value ayaa laga soo gaarsiinaa macnihiisa iyo wax loola jeedo oo arki doonaa markaad waxa soo samaysataa project kadibna formka marka timaado kadib waxaad tagtaa tools ka tag tools ka tag toolska waxaad tagaysaa markaas text box toolka loo yaqaan text box kaas soo qaad text boxka waa nagu cusub yacna text boxka waxa uu ogolaanaya qofka userka waa meel qoraal uu soo gali karo ama uu qoraal ka heli karo waa meel qoraal uu soo gali karo ama uu qoraal ka heli karo marka text box sababta saydamna waa soo jiidaya inta ayaa dhigaya inta ayaa dhigaya waa ka text box kan ayaa laamina waa text box waa box waa kana afar wareegan afar geeska loo yaqaan box waa meel text qoraalka caadiga waa meel qoraal loogu talagalay qof userka uu gali karo ama uu ka heli karo waa ka saamina mid koowaad waa kana waxba magac ka bedeli maayo wax maartay namekiisa magaciisa waxba ka bedeli maayo mid text box 1 ayuu noogu qoraa kan ayaa dana soo qaadaya hadana inta ayaa soo dhigaya kadib waa la keenaya text box mid labaad text box waa inuu ku sheegay waa meel qoraal aad gali karto ama aad ka heli karto saadba magac ka fahmayso text waa qoraal box caadiga waxaan soo gelishaa laba text box kadib waxaan soo gelinaya button ayaan soo gelinaya button ayaan soo gelinaya button 1 buttonka text qoraalka noo saaran oo kor ayaan ka bedelaa waxaan qorayaa kala jar ayaan qoraa kala jar ayaan qoraa waa ka saamina qoraalka waa ka saa marka namekiisa magaciisa waxba ka bedeli ma magaciisa waxba ka bedeli oo san ayaa ku deysana hoos u soo dhig text box kan asna inaan weyneeyo ayaan rabaa hoos u soo dhig marka waa kana labada text box san ayay noo yihiin kadib button kaas ayaan double click leeyahay button kaas ayaan xaraba hadhow in amaad dhex qoro code ka yimina marka waxa sameeyna function by falka waxa lagu sameeyaa function gudiis markood waxa la loo sameeyo waa soo marna function private ayaan leenahay private waa dhahan ereygaas ay qoraysa kadib waxa qoraysa function function marka qorno kadib waxaan qoraynaa functionka magaciisa waxa leenahay kala kala jar ayaan qoraynaa kadib waxa furaynaa mujidu bracket marka furto waxa ku soo baxay afartan option by ref by val off iyo optional iyo baran array by ref 10 ayaan ku arki doonaa by val imam by val waxa weeyaan inaan sameey karno variable copy variable copy kaasoo meesha aan ku isticmaali karno waa variable copy kaasoo meesha aan ku isticmaali karno oo ujeedin by val ayaa qoraysa kadib magaca variable ka raacinaysa waxa leeyahay num1 sumid num1 ayaan qoray kadib sumid as sumid kadib waxa raacinaya double maadaama dhow jajab oo ma ka xisaab jajab maadaama ima karto integer ma dhahayo waxa leeyahay double hadhow siiba dil ala jajab u yimaado oo maasta noogu soo qor marka adoo variable ko noo sameeyay meesha dhin leen waxa ku bedelnay by val sababtoo wuxuu noo sameeynaa variable iyo qiimihiisa isoo tamana oo copy warka koon xawaa by val waxa loo isticmaalaa markii aad inaad sameeysid variable copy ay waxa loo isticmaalaa by val warka kooban walaas waa xeelad badan oo ugu shaqaa jira hadana waxa leeyahay hadana by val hadana waxa leeyahay num2 ayaa leeyahay numberka labaad numberka labaad aas ayaan leeyahay waxa nooga dhigtaan leeyahay double tiraja maadaama armo double nooga dhig ayaan leeyahay kadib waa soo xirayaa bracketkii kadib function kan nooc ayaan u sheegay xalay asna double function kan waa function inoo qabanaya number buuxa iyo kadib function halkaas uu ku eegyahay saas maadaama aan sameeyay kadib waxa leenahay return waxa inoo soo daawacdaa shalay aan soo saar return waxa loola jeedo waxa inoo soo daawacdaa leenahay num1 oo laga jaray num2 number 2 number 2 inoo soo daawacaya leenahay function keeni saas ayaan ku sameeynaa marka hadda button kan button keeni sabka ku sameysnaa halkan ayaa xarabna inaan uga wacno halkan ayaa xarabna inaan uga wacno kadib waxa leenahay message box dot show ayaa leenahay enter ayaa leeyahay saas ayuu ugu sameeynaa deerta adna u sameysan kartaa kadib halkaas waxa uga wacayaan function keeni aan rabo in la soo daawac marka
halkaas waxaa leeyahay kala jar وجد منه واي kala jar kadib bracket ayaan furaa منه bracket markaa furo halkan maxaa ku qoran num1 as double منه variable-ka koowaad ayaa lagu soo bandhigaa variable-ka koowaad asigoo maaragtay koobi waa kan halkan nagu la sameeyay num1 ma jid waa variable-ka aan soo sameeyay واي halkaas markaas waxaan gelinayaa variable-kaas meeshii rabo in nagu la soo منه kadib waxaa leeyahay meesha waa taqaan text box-ka waa taqaan text box-ka aan soo gelinay text box 1 halkaas noo dhig ayaan leenahay macnaha variable-kaas iyo asiga wax us wato qiimihiis us wato by value soo majid asiga qiimihiis us wato waxa inoogu shubtaa text box 1 waa u jeedaa macnaha way dot text asoo qoraal ahaan inoogu shub ayaan leenahay macnaha dot text soo majid asoo qoraal ahaan inoogu shub kadib haddaan ira com haddaan ira halkan waxaa u jeedaa num2 soo majid num2 waa variable-kii labaad aan sameeyay way variable-kaas iyo qiimihiis us wato way soo majid waxa inoogu shubtaa aan leenahay text box 2 kilo baad aan soo gelina text box 2 way text box 2 way kan noo soceli text box 2 waa taqaan macnaha waa kuwan macnaha dan design ku laabto waa kuwan macnaha text box 2 kilo waa kana waa text box 1 waa kana macnaha way qiimihiis halkaas inoogu shub ayaan leenahay macnaha dot bici ayaan raacnaa soo text soo qoraal he way inoogu shub ayaan leenahay macnaha way halkaas ugu jeedii macnaha way kadib bracket-ka ayaan ku soo xiraa macnaha way bracket-ka ayaan ku soo xirayaa saas ay nagu dhamaan macnaha quraan marka hadda maaragtay aan ran iraado bal isoo wixii dhacmina ma ku faahfaahintay macnaha way variable oo maaragtay way oo copy ayaan sameynaa soo ma jeed variable-kaas by value asi qiimihiisa is wato waxay inoogu shubtaa text box 1 iyo text box 2 way by value ina faahfaahintay ayaan macnaha waa variable copy ah oo meesha arta ku isticmaali kartaa macnaha way marka start aan dhahna macnaha way marka sharaxaad badan laga baxshaa adiga hadda tiir ahaan saas u fahmi macnaha way marka ran ayaa dhahnay bal ila fiir wixii soo bax waa kana macnaha waa kana way meesha kor waxaan gelinayaa 100 ayaan gelinayaa macnaha way meeshaan waxaan gelinayaa 40 waxaan rabnaa inuu noo soo saaro 60 macnaha way waxa leeyahay markaas button-ka kala jar ayaan ku dhufanayaa waa u jeedin waxa la soo saaray 60 macnaha hadii 100 laga jaro 40 xawaay 60 macnaha waa u jeedin macnaha program yar oo wax kala jar kale ayaan sameynay macnaha way program noocan ah oo maaragtay oo xisaabaad ah samay macnaha waa samay kartaa waa fududahay program noocan ah wax kala jari kara wax isku dari kara wax isku dhufan kara samay macnaha way isku dhufashada calaamada waxa la isticmaalaa xiddigta macnaha marka isku dhufasho arag calaamada xiddigta ayaa la isticmaalaa way calaamada kale waa taan ku dhafay ka jartay way program noocaas samay macnaha kaliya maanta xirnay by value ina fahanto macnaha by value kaliya ina fahanto waxa weeyaan waa variable qiimihiisa is wato oo copy ah meesha arta adiga ka timid kadib waxaan dhaanay text box 1 qiimihiisa way noo geli macnaha waa ina fahantin ayaan kale cashkan ku xiga inta nimaadona sidaas ii nabadgeliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh